nabadgelyo kordha toydil ahaantiinba oo barnaamijkeennii codka warsameeya wacdaraha nolosha oo alaaba kala socotaan bartaan youtube-ka ku leenahay ee xawwa t v taxnaheenna maanta waxaynu ku wadaagi doonaa sheeko dhaba oo ku salaysan dhacdo run oo ku saabsan inan soomaaliyeed taasoo uu ku yidaamay malaawaal sida sheekafaneedda lagu yaqaan qoraaga iyo farshaxanka soomaaliyeed waa cabdiraxmaan maxamuud axmed oo loo goran og yahay dhamme sheekadaasoo magaceeda la yidhaahdo ubixii rajada waa tan ubax oo ka warramaysa nolosheedii magacaygu waa ubax da'daydu waxay madaxa la gelaysaa 15 gu malihi magac labaad saddexaad ama abtirsiime isir midna malihi qabiil qolo iyo qarantoonna diin iyo ma aqaano wax iyo keli ma aan dooranin laakiin waxaan isarkay un aniga oo nolosha ibka dhex jooga manay ahayn goob iyo goor layga soo dhoweeyey markaan uurka hooyaday gelayay aabbahay kamuu raalli ahayn sidaa darteed waa uu iga dhaartay markii uu maqlay warkii bishaaradayda waxaan u wacad ku maray in haddii ay hooyaday sheegato uuna wada dili doono inkastoo aan guriga ayayday ku dhashay malaha kama aan qiimo badnayn dheg ubaxa oo ka dul curatay xayaabkii wajada gurigaas ku yaalay malaa waa sababta magaca ubax laygu bixiyey anigoo mujo ah ayay hooyaday naaska iga goysay markii ay u adkaysan weyday dhagxumadii xantii iyo caydii dadka ayay arag iyo urba igala fogaatay waxaan mar dambe ogaaday inay farxadkeedii ugu wardambaysay magaalo xeebeed ay doon ka raacday maalintaas kadib waxaa dhulka iga qaaday ayayday waxay ahayd qofkii labaad ee keli ahaa ee noloshayda indho naxariis laygu soo eegay ta hore waxay ahayd hooyaday laakiin hooyaday noloshayda iyo teedaba waxay uga farxatay kolkii ay xamil weyday culayska waajibka nololeed ayayday inkastoo ay hooyaday indhacada ku fiirisay haddana aniga mar walba waxay dareensiin jirtay inaan ahay dhibane garowshiya u baahan mararka qaarkood ayay habaryartay ku qasbi jirtay inay naas nuujiso ilaan wanaag kuuma waare ayaydayna aniga oo raadaqaajis ah ayay iyadoo aad u cimri badatay geeriyootay waxay kafaalo qaaday habaryartaydii keli ahayd ee nolosha wax rixin ii lahaa ee quriya ahayd inkastoo aanay badnayn mararka qaar ayay ficili igu muujin jirtay waxa qalbigeeda iga buuxa waxaanan ula muuqan jiray waslad ku dheeraada dunida aniguse waxaan aaminsanaa inay jiraan mar walba sababo maangal ah oo ilaahay abuuristeeda ka lahaa waxaan ka soo toosi jiray gurigii weynaa ee fiilada ahaa ee habaryartay dadka noloshayda guudka ka daawada sida asxaabteyda iyo xaafadaha jaarku waxay u haysteen inaan ahayna boqor daartaan ka soo toosay iyo cunnada saddexda waqti ayay u haysteen inay badhaadha adduun iigu idishahay waxay mooganaayeen in kashaydu engegnayd waxay mooganaayeen in nuxurku noloshu yahay jacaylka daryeelka naxariista qadarinta iyo kacaltooyada maan garan karayn sababta ay waxa dhacaya u dhacayeen laakiin waxaan arkayay jahwareerka dadka waxaan maqlayay gariirka gantaalaha hubka maalinba maalin ayay ka soo xumaanaysay maalinba maalin ayay ka soo dhowaanaysay ilaa maalinkii dambe aan maqlay dhawaaqa qasharka rasaasta oo sida dhibcaha roobka dhagahayga ugu soo dhacaya maan fahmi karin sababta dadkii waaweynaa ee afka isku afgaran jiray isku fahmi waayeen ugana doorbideen isdilka xayaabkii ubaxa lahaa ee gurigayga ka hor beerna ayaa qaadhay kogay dabadeed qalalay maalintaas ayaa caleyntii guudkayga saarnayd soo dhacday aniga iyo ubaxii xayaabkaba waxaa galalafay damacbeenoodyadii baadilka ahaa ee qowlaysatadii ku diriraysay saamidoonka xukunka ee burburinaysay wixii ay wada lahaayeen firxadkii qaxa iyo badbaada raadiska oon ku weheliyey habaryartii iyo qoyskeeda ayaan kama dambaystii cidhibdhiganay xerada qaxoontiga ee nikifali wuxuu ahaa daaduun ka soo bilowday geeska afrika oo ku dhammaaday bariga afrika ammaankayga iyo nolosheedaba waa la qaabilay waxaannu iska wada ahayn qaadaama dhargaan waxay ahayd nolol iska geeri ah iyo geeri iska nolol ah waxay doorasho la-aanteedu nagu qasbaysay inaannu ku wada badhaadhno wixii alla noo wada calfo inkastoo ay noloshaydu adkayd habaryartayna aanay aad ii jeclayn waxaan u muuqday qof nolosha wax uga bilaabayaan waxbaan malayn jiray waxbaan sababayn jiray waxbaan aamini jiray waxna waan ka wada baran jiray habaryartay ayaan la ducaysan jiray ilaahay ayaan la baryi jiray waxay ii sheegtay in ilaahay samada joogo kolkaasaan kor eegi jiray waxaan weydiiyey inuu ilaahay jecel yahay waxay ii sheegtay inuu ilaahay qof walba jecel yahay xitaa kuwa necab ee dembifalayaasha ah weli wuu sii jecel yahay oo uu quudiyaa oo u raaxeeya weliba haddii uu doono jannada geliya waxaan kor u fiiriyey markii ugu horraysay ilaahay si addoonnimo ah inkastoo aanan arki karayn haddana waan rumaystay waxaanan ka rajeeyey inuu daymo naxariis laygu soo celiyo marmar ayaan keligay ducaysan jiray oon si gaara ilaahay ula fuqi jiray waan ogsoonaa inuu maqlayo mararka qaar anigoo hiimsanaya oo hoos u ooyaya ayaan ilaahay weydiin jiray sababtoo aniga noloshan iigu dooray laakiin noloshaydu waxay u ekayd mid lagu adag isku soo taagaysa waxaan la soo kacay han iyo yuhuun curdina oon ku rabo inaan nolosha iyo qorshayaasha wanaagsan ee ilaahay iigu talagalay ku qaabilo habaryartay ninkeeda sigaarle yar oo uu sameeyey markii uu qaxoontinimada bilaabay ayuu dukaan u ragay oo dhaqaalaha qoyskiisu isku fillaan ayuu ku taami rabay
inkastoo aanan aad uga weyneyn carruurtii u dhalay aniga fiiro gaara imuu siin jirin, damac ayaase ku beernaa. si uu ila macaamilo ayuu markii horeba garan lahaa. maalmahan si xodxodasho dheeraada ayuu bilaabay. damaca waalan ee xanuunka ah ayaa ilowsiyey inaan ahay inantiisii uu intaasoo korneeyey. ajar iyo khayr wixii hore i gashaday ayuu ku burburiyey doonis qalloocda oo aan suuragal ahayn. kadibna wuxuu yaqiinsaday inaanay sinaba taasi ugu fuli karin. wuxuu i qaaday colaad aanu gar igu lahayn. maalintaas ayuu bilaabay dejinta qorshihii gurigiisa lagaga cadhin lahaa. wuxuu igu wanjalay lacag aanan xadin. habaryartiina si ba'an oo ka fiirsasho la'aana ayay igu garaacday. waxaa layga dhigay tuugad. laakiin maalinkii u dambeeyey ee guriga habaryartii layga soo saaro, wuxuu kama dambaystii igu masabiday habaryartiina ka dhaadhiciyey inaan cuntada sun ugu dari rabay, sidaa darteed aanan qoyskeeda qayb ka sii ahaan karin. wixii intaas ka dambeeyey waxaan daylo ku ahaa darbiyada dhaxanta badan ee ku maageeran guryaha dugsoonka badan. waa bulsho ismadeeta ah oon horarka iyo waraabaha ka ceshan aqoon hantideeda beelahda ah. anigoo sidaas u dayacan ayaan la kulmay gabadh Soomaaliyeed oo qalbi wanaagsan. markii aan taxanaha nolosheeda uga warramay ayay indhaheeda ilmo burburan oo baylahi ka soo bitaacday. waan dareemay inaan ka qalbi adag ahay. iyadoo ilmada iska tiraysa ayaan qalbigeeda jilicsanaa ku waaniyey inaanay ii ooyin. waxaan u sheegay duruufaha noloshu inay iga dhigeen geesiyad qalbi adag. waxa kaloo aan u sheegay inaan ku faraxsanahay xaalad kasta oo aan ku jiro. waxaan dareemayay inaan saameyn weyn qalbigeeda kaga tegay, waayo waxay dib ka mahdisay noloshii turxaanta yareyd ee ay soo qaadatay. waxaanay qalbigeeda uga mahad celisay qof kasta oo nolosheeda si uun maalin uun iyo ilbiriqsi uun u wanaajiyey. gabadhaasi waxay siisay hooy, hu iyo hunguri, weliba intaas iyo in ka badan inaan ka waayay dadka kale. waxaan ka helay garowshiyo iyo gargaar dadnimo aan shardi lahayn. waxay ii noqotay saaxiib iyo wehel iyo ehel. waxayba ii ahayd sabab qurux badan oo aan kaga dhunto xasuusta murugada foosha xun. tabantaabada safarkii nololeed ee ujeeday ayaa soo galay. waxay gaadhay xilligii ay iga tegi lahayd, laakiin waxay si aada igala sii dardaarantay gabdhihii iyo wiilashii Soomaaliyeed ee xaafadda deganaa. muddo markii ay ka soo wareegtay ayaa sabab la'aantii laygu nici jiray laygu nacay. waa la hiifay oo la iska kee haaraamay. maalinkii dambena iyada oo dhagaha laygu ridayo laygu tilmaamay cad xaaraan ah. gabadhii qalbiga wanaagsaneed markii ay garab igu bannaysay waxay ahayd gebagabadii farxaddayda iyo bilowgii warwarka. marar kalena ilaahay waxaan weydiin jiray sababta waxaasoo dhammi igu dhacayaan, laakiin kamaan heli jirin jawaab degdeg ah oo farxad gelisa. waa maxay dembigaan ilaahay ka galabsaday, mise aniga ayaa dembiga cido kale layga goynayo? markii aan u adkaysan waayay xaqdhowr la'aanta iyo xadgudubka intii aan la noolaa, waxaan go'aansaday inaan xaaladayda u bandhigo wiil Soomaaliyeed oo xaafadda dukaan ku lahaa. waan ka adeegan jiray, sidaa darteed wuu i soo dhoweeyey. waxaan u sheegay in qoyskaygii aan ka soo firxaday. wuxuu ahaa wiil bashaasha oo furfuran, dadka macaamiishahayna ay ka wada raalli yihiin. naftayduna waxay iska aamintay inuu gacan qaban karo. wixii siiye qol yar oo madbaq ahaan gurigii uu degan yahay uga dambeeya. furaash qolka dhex yiiliinta uu farta igu fiiqay ayuu sheegay inuu imarti gelin doono in alla inta aan rabo. wuxuuna ii sheegay inaan cid dambe oo dhibta arki doonin. wixii dareensiiyey kalsamaan iyo kalsooni. muddo aan badnayn ayaan qolkii yaraa deganaa. wiilkuna igaga warhan jiray. 3 waqtiba cunada wuu i ogaan jiray. marmarka qaar macaan ayuu dukaanka iga keeni jiray. wuu ii sheekayn jiray. walaal iyo wehel noloshayda ku soo biiray ayaan ka dhigtay. habeen baan weydiiyey sababta waxaasoo wanaaga igu samaynayo. waa iska ilaahay dartiis ayuu meel aan fogeyn jawaab ahaan iga soo qabtay. waxayd habeen kale oo dhaxanta dibadda ka dhacaysa kasoo dhex baxayso gidaarada isku dhow iyo go'aan isku hoos nabayo. waan qarweye oo waxaa laygu dhex shidayay riyada. waxaa iga xoog badnaa xasuuso damqasho kulul oo isoo maray. hiinraaggayga waxaa laga maqlayay gagaarka goortuu waaqsaq dhexe. waxaan ku toosay garaac xooggan oo albaabka kaga gariiriyey. markii aan ka furay albaabkii, waa wiilkii wuxuu iga codsaday inaan ka ogolaado inaan gudaha u soo dhaafo. waa xilli dambe, laakiin isagu wuxuu ahaa qof gurigiisii jooga. waxaan waraystay xaaladiisa caafimaad, waayo wuu dhididsanaa, wejigiisana hadh badan ayaa fuushanaa. kumaan ogeyn inuu qaadka cuno, horena uguma arag isagoo taqsiinsan. waxaan dareemayay inay wax badani qaldan yihiin caawa. wuxuu qabtay gacanta midig, ta bidixna dib ayuu igu laabay albaabka. dhudhunkaygii yaraa ayaa ku dhex adaadismay gacantiisii tamarta badnayd. maan garan karayn waxa duunkiisu iga dabacsan yahay. wax kasta oo uu dhacana kamaan dhacsan karayn. muu ahayn qofkiisii, muu lahayn caadadiisii iyo wacnaantii shalay. wuxuu markan ahaa cadow. waxaan is arkay anigoo mar labaad furaashkii dulgalgalanaya. awood iga taag badan ayaa dib igu xejinaysay. maan qarweyn
waxaan si u qeylinayay miciin. maan malayn karayn waxa uu labadeeda lugood ka dhex raadinayo. waxaan ahaa 13 jir weli curdina, sida arxandarrada ee uu labadeeda boodo u kala goynayo, dhuunteedana gadaal ugu ceejinaya ayaa mar kale maankayga ku soo dabaalay habartii coodhoodhay ee habaryartay anigoo naqan ii geysay, islaantii jinka u ekeed ee mindiyaha iyo mudacyada iyo qodxaha sidatay. waxaan ku xasuustay xanuunka, xoogga iyo qasabka. waxaan ahaa 13 jir keli ah, weli iskuman arkin dhiigga caadada ee gabadhnimada, manaan lahayn inannimo buuxda. waxaan si ahaa sabi carruura. waxay dul hoganaysay weynida damaca ina rag, damaca ogsoonaa maatanimadayda iyo daciifnimadayda, damaca ukasnimadiisa iyo halhaliilka gaadhista kacsijabkiisa ka indhasaabay xeer kasta oo anshaxa dadnimada iyo garashada suubani lahayd. waxa uu ogaa in uu ahaa qofka keliya ean u qayshan doono, waayo waxaan ahaa magantiisa. may jirin dhabbo u furan inuu maro, waxaase damiir xumadiisu ku khasbaysay inuu dowgiisa xoog ku jeexdo si uu tiisa qudha u gaadho. qalbigayga ayaa si hoose u ooyayay, waxaanan ka dhaawacmay niyadda, kana dhiigbaxaya hanka. 4tii qodob ee islaantii xumeed igu tashay ayaa si xanuun leh hilbahayga u kala sareeyey. waxay u ekeed inaan ku dhex miyir doorsoomayo oon la waalanayo duni ay waalidu caadi ka tahay. waxaan mar kale soo miiraabay anoo dhex jiifa adduun foolxun oo aan mar kale jeclaadeen inaan ku soo laabto. meel cid kasta oo aan u magan galay igu durdurisay. waxay ahayd xaalad dadnimada ka baxsan. wuxuu jeexjeexay qofnimadaydii, mustaqbalkaygii iyo gabadhnimadaydii. umay muuqan inuu jajabinayo muraayaddii qalbigayga oo aan kabkab, ladhladh iyo nabnab dambe midna lahayn. habeenkaas ayaan dareemay shisheeyanimada dhabtaa. waxaan keliya toyanayay xuquuqdaydii dadnimo. waxaan isweydiinayay qiimaha jiritaankayga iyo ujeeddada noloshayda. waxaan ka qoomameynayay sidaan u miciinsaday nacab ay ka fogaatay badbaadadu. waxaan dhab ahaan u hubiyey in ina rag dhammaantii yahay yeeyo iyo dhurwaayo dhiigmirad ah oo ka siman rixin jarka iyo magangoysnimada. waxaan soo miciin biday adduun iskugu baxay dheelodubato iyo dhallaandabato. anoo weli furaashka dul wadhan oo xubin quri jidhkayga nuuxsan karin ayaan hal cabbaara sugayey inta bidhaantu ii caadbaxayso. waxaan dareemayey kelinimo iyo hiilla-aan buuxda. ma aan ogeyn goortii bahalkii ii cunayey fakaday. waxaanse mar kale u baqayay baylahnimadayda. gooyi aan ku jiifay ayaan gacantayda dulmariyey. waxaan toobay dacalka shishe ee marada. waxaan ka tuujiyey dhiiggaygii oo ku wada baahsanaa calaladaydii. hore umaan aqoon galma iyo xidhiir jinsi oo lab iyo dhadig dhex mari karaa. manaan kala saari karayn macnaha jujuubka iyo raaxada. manaan malayn karayn waxay ka midaysan yihiin ama ay ku kala tegan yihiin. laakiin waxaan bartay uun inaan ahaa bikrad oon lahaa bikro. goobtii guuldarrada badnayd ayaan damcay inaan isaga cararo. ma rabo xasuusta qolkan madow ka dhacday iyo wixii meelo kale igaga dhacay. mana rabo inaan fisho waxa iman doona. keli ah waxaan rabay inaan soo gebagabeeyo foolxumadaas. ma rabo inaan dib u soo eego noloshan iyo cid kastoo ay xasuusin karta. welise waxaanan garanayn meel aan uga fakado. anigoo weli si u jahwareersan ayaan albaabkii ballaqnaa dhaafay. dhaxantii dibadda iyo waraabe ayaan ka doorbiday intii aan ka dugsan lahaa oo iyagui dibadgaaleeyey. habeenno badan oo dambe waxaan marti u ahaa guryaha bisaaska, eyda iyo duqsiga. waxaan xigtaysanayay xashiishka iyo kudaafadda dadku iska soo fogeeyeen. waxaan ahaa qashinkii dadnimada iyo dhimashadii dareenka insaaniyadda. malaha ilaahaygii ayaa ii soo hiiliyey. waxaaban moodayay inuu iska kaylaawey. malaha cawadii iyo ayaankii aan lahaa ayaanu ishellay. saakadani aroorihii hore way ka saxa udgoon tahay. aroortuna subaxyadii hore way ka dugsoon tahay. waxaan toosaanoo ku jiifa sariir giigsan oo qurux badan. anoo garan laha meesha aan jooga ayaan hadba indhaha la raacraacayay gidaarada cadcad iyo nalalka cadcad iyo qolkan wada cad. waxaa albaabka soo furtay cid. waxaana dhaqso u fiiriyay dhinacay ridda si aan dhaayahayga ugu arko malaa'igta jannada joogta si ay aadanaha kale uga muuqduwan yihiin. waxaa ii soo muuqday ubax qurux la yaab badan leh. waxa kaloo aan arkayay cidda sida. waxaan arkayay dhoolla caddaynta quruxda bilan, garhka cad iyo timaha jilicsan ee wada cad. waa qof wada cad oo gashan maryamad madow, laabtana ku xidhan silsilad weyn oo cad oo leh carab isku tallaaba oo cad. markuu ii soo dhowaaday ayuu wejigiisa iyo gadhkiisii weynaa igu soo foorarsanayay ila muuqekaadeen dad. waxaan xasuustay habeen dad iskugu kaaya dambaysay. waa naxay. baqasho awgeed ayaan dib isugu gundhiyey. ninkii dhoolaha caddaa wuu ila hadlay. intuu istaagay ayuu sugayay inta aan xasilayo. wuxuu ii sheegay inuu yahay cid wanaagsan, inaanu ihadimeyn doonin. waxay hadimeeyana aanu itusi doonin. wuxuu igu qanciyey in hoyga ilaahay layga soo dhoweynayo. wuxuu ii soo fidiyey ubixii. wuxuuna ii sheegay in ilaahay igu leeyahay soo dhowow. waxaad mooddaa inaan hadalkiisa aaminayo.
waxay u eg tahay inuu run ka sheegayo. waxaan ka dhadhaminayay in ereyadiisu ay ka muuqdaan sifooyinka suubanaantu, naxariis, qadarin iyo xubeero ayaa weelinaysay weedhihiisa sida aan filayo. waxaa laga yaabaa inuu dunida ilaahay mas-uul uga dhigay sida uu ii xusayo. markii aan kala qala baxnay wuxuu weydiiyey magacayga. ma magacii cadaabta laygu yeedhi jiray ayaan ku sheegaa? maankayga ayaan iska weydiiyey. magac cusub inaan la baxo ayaan daneeyey. waxaanse ku idhi magacaygu waa Ubax, waa magacii hooyaday ii bixisay. waa waxa keliya ee isku xidha albaabka hooyanimo ee nifka ka soo galay geeridaydii hore iyo noloshaydan dambe. ma arka sabaan magacayga u bedelo, waxaan arkaa sabab kale. sida ubaxa laygu muuneeyey ee quruxda badan ee dib ugu soo nooleeyey diladii noloshayda ayaan ana rabaa inaan u ahaado sabab noolaysan ururada nolosha iyo noolaha oo dhan. ninkii wada caddaa wuu ila saaxiibay, ila sheekaystay oo ii sheekeeyey. isaga ayaa ii gaday shaarkii iyo surwaalkii u horreeyey ee lagaga bedelay toobkii dhiigga midhan ahaa. wuxuu noqday aabbay jecel, igana sii jecel cid kasta oo nolosheeda soo martay. wuxuu ii sheegay inuu ka yimid shiinaha fog, laakiin wuxuu tusay oo kale inuu iiga dhow yahay kuwa aanu sinjiga soomaalinimada wadaagno. wuxuu meel iga dejiyey qololkii ka dambeeyey kiniisadda oo ay degan yihiin ubad badan oo ugu yeedha aabbo. wax kale uu ii sameeyey hooyay jecel oo dhabta igu qabataa. waxay ii dabtaa timaha oo laabta ayay igu seexisaa. habeenkii kolkaan ku sasa riyooyinka xunxun waxay bartay gabdho iyo wiilal walaalahay ah. iskuma wada muuqikin, waxaanu kala wada nahay midabyo iyo qomam kala wada duwan, laakiin waxaanu ku niyad samaaday markii ugu horraysay aan arko dad walaala iigu yeedhayo oo igu soo dhoweynaya inaan wax la cuno. hooyadan cusubi waxay ii sheegtay in ilaahay aadanaha oo dhan wada jecel yahay sidii habaryartay. waxaanan u sheegay in habaryartay markaan yaraa ay bartay in ilaahay cirka jooga. ilaahay ciise wuu dhintay ayay hooyadeeda cusubi ii sheegtay. markii ay aragtay inaan warkeeda ka yaabanahay waxay igu qancisay in ilaahay u dhintay dembiga aadanaha ay hooyadii dahatay ku jirto. kolkaas ayaan fahmay sababta waxaasoo dhab iigu dhacayaan, sababtaanu ilaahay uga soo jawaabi jiray ducooyinkaygii. ubixii yaraayaan macbadka ka hor tallaalay subax kasta waan waraabiyaa oo ilayska qoraxda ayaan u dhigaa si uu u koro. waan ku faraxsanahay xidhiidhka nololeedena dhex yaal ugu yaraan. waan dhowla caddeeyaa maalin kasta. waxaan halkan ka dareemay farxad iyo nolol. waxaan ku qanacsanahay inaan joogo, waayo waa layga jecel yahay, waa layga soo dhoweeyaa, waana layga xasuustaa. waxaana laygu baray inaan wanaajiyo dhaqankayga, asluubtayda, xurmadayda iyo hankayga. waxaanan u badinayaa inay farxaddaydani dhab tahay. mararkaan guriga ilaahay dabadda uga baxo waxaan la kulmaa dad ii sawraceeg oo ku nool agahayga. marka ii maleeya inaan Soomaaliyeed waxay weydiiyaan qoladayda iyo halkan ka yimid. waxaan noo sheegaa inaan hay Eritreyaanad. waxaan ka cararayaa wax kasta oo magaca Soomaalinimo ii dhoweyn kara. waxa kale oo aan ku burinayaa malahooda beenoobay. markay af Soomaali kula hadlaan intaan isdhagamaro ayaan aniga oo fahmaya warkooda ugu jawaabaa af kale. waxaan ka xishoodaa inaan ku hadlo af la igu yeesay inaan ahaado. marmarka qaarkood ayay igu casuumaan inaan masaajidka u dhow imaado si aan cibaadada ugala qayb qaato dadka ii muuqeeg. waan ka aamusaa inta badan, wejigaygu wuu dhoola caddeeyaa, laakiin laabtaydu way oydaa. ma rabo inaan dareensiiyo inaan masaajidka dhahay. ma rabo inaan u sheego in masaajidka ay joogaan dad aanan rabin inaan wejigooda mar dambe arko. ma rabo inaan kula kulmo wejiyadii noloshayda sidan u qaabdarreeyey. laakiin maxay ii weydiinayaan sababtaan kiniisadda u deganahay? maxaa ka galay sifaha uu baadariga indhaha yaryari aabbe iigu noqday? qof aan isba diinta ku dhaqmini muxuu tayda ku falayaa? imise magac ayay iga rabaan inaan caabudo? ma waxay rabaan inaan noqdo waxa ay iga dhigeen, mise waxay rabaan in ay iga dhigaan wax aanan noqon rabin? ma waxay iga sugayaan inaan soo celiyo jacayl aan la ii gelin, mise waxa ay siinayaan jacayl aan laga sugaynin inay bixiyaan? markay weydiinta igu badiyaan waxaan u sheegaa inay diintaydu fudud tahay. diintaydu waa wanaagga, naxariista iyo jacaylka dhammaan jiraha umman ee ifka. waxaan rabaa inaan ahaado bilowga wanaag kasta iyo dhammaadka xumaan kasta. waxaan naxariis gelin doonaa noole iyo manoole kasta oo aan naxariisi gelin. waxaan rabaa inaan dib u waraabiyo quluubta aadanaha ee jacaylka ka araday si uu dib ugu bixiyo guudka ubax kasta. waxaan arkayaa mustaqbal ifaya oo ii hiraya, mana sii sugi karo rajadaa gaadhisteeda. welinayga muu gurin jacaylka wax kasta oo aan jeclaa. waxaan weli si gaara u jecelahay ilaahaygii hufnaa. ma jirto cidaan tartan kula jira, aniga ayaase dhabbada geedigayga hogaaminaya. diyaar uma ihi inaan u noolaado si aan culayska cid kale ula noolaado. waxaan rabaa inaan berri ahaado qof ka fiican
ka fiican shalay. Tani waa aniga, taasi waa sheekada noloshayda, waan fariin kugu qaana, halkanina waa bilowga baraarugaaga, waxaan ahay xor. fadlan subscribe, like, gambalelkana furo si wax walba cusub ku soo gaadhaan xaguuga TV.